dadkii isaga ahaa NFD ka tirsanaa xornimadooda rabeen inay ku muujiyaan inay rabeen inay gooni u istaagaan haddii loo diido laga hor istaagay waxay u haysteen inayna weli xoroobin xornimada la sheeg waxa weeyaan xornimo laga xoroobay gumeystihii Ingiriiska iyo gumeystihii reer galbeedka ee qaaradda Afrika gumeysanayay waxaa xoroobay wadaniintii asliga indhinij ahaa dadka madow ee reer Kenya ee gumeysigu haystay kulanti wanaagsan Ramadaan Kariim daawade magacaygu waa Axmed Laqay kuna soo dhawaada qaybtii afaraad taxanaha barnaamijka iyaga sooyaalka Soomaalida Kenya oo qaybtiisa saddexaad aad ku soo daawateen qaabka ay ku bilowdeen warbaahinta Afrika iyo hanaankii ay u tabin jireen kacdoonkii gumeysidiidka ee ka curtay qaaradda Afrika isla markaana la isaga rogay heeridii gumeystaha qaybta afaraad ee barnaamijka iyaga ayaan uga hadli doonaa hadduu guul la saamaxo yaa xoroobay yaas laga xoroobay xorriyadii kadib 1963 maxay filayeen shacabka deganaa goboladii waqooyi Kenya ee la oran jiray NFD sanadii 1963 markii ay Kenya heshay xorriyadii ay muddo ku taamayeen shacabka Kenyaanka ah waxa hoggaanka u qabtay Jomo Kenyatta oo ah aabaha dhalay madaxweynaha iminka talada haya Uhuru Kenyatta sidoo kalena ahaa aabihii halganka Kenya ee hogaaminayay ururkii gobonimo doonka ee la magac baxay Mau Mau dad badan ayaa dhaliilay qaabka Ingiriiska xorriyada u siiyay Kenya waxaana dadkaasi ka mid ahaa hogaamiyaashii NFD oo doonayay inay ku biiraan Soomaaliya iyadoona xilliga wixii ka dambeeyay ay bilaabeen dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah kaasoo ay filayeen inay ku go'i doonaan sidoo kale waxaa jiray nin la oran jiray Jaramogi Oginga Odinga oo ah aabaha dhalay hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo hami badan uga jiray inuu madaxweyne ka noqdo Kenya isla markaana shacabka uu hogaamiyo balse ku hungoobay taasi bedelkeedana ay ku kalaftay inuu qoro buug ciwaan uga dhigay Nodiyad Uhuru oo macnaheedu yahay xorriyad maynan gaarin xilligaasi wixii ka dambeeyay waxa uu noqday mucaarad rasmi ah oo ka soo horjeesta xukuumadii uu hogaaminayay Kenyatta sheekooyinkaasi oo dhan ayaa ku tusinaya in xilligaasi uu jiray suluug siyaasadeed Ustaad Cabdullaahi Bundiid oo ah bara wax ka dhiga jaamacadda Kenyatta isla markaana dhaqan yaqaan wax badan ka qoray dhaqanka Soomaalida Kenya oo aan wax ka weydiinay cidda xorowday cidda laga xoroobay ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay arrimahaasi mas'alada yaa xoroobay waxa xoroobay dadweynihii shacabka Kenya dhammaantood say u wada jumla ay u wada yihiin inkastoo hadhowta sharaxa aan bixin doono waxay ka xoroobeen gumeysigii imberiyaaliyadda ee Ingiriisiga ee soo jireenka ahaa 1888 kaasoo heerar fara badan soo maray wuxuu soo maray chairmanship wuxuu soo maray administrators yacnaha kuwa idaaradda imberiyaaliyadda ama East Africa u joogay boqortooyada ee UK waxaa kaloo uu soo maray British East Africa Protectorate waxa la yiraahdaa uu soo maray nidaamka ilaa iyo 1920 haddana waji kale ayuu yeeshay oo la oranayay Kenya Colony Protectorate ilaa iyo waqtigii dambe ee Kenya ay xornimada ay qaadanaysay 63 waxaana dhihi karnaa nidaamkan ugu dambeeyay ee shanaad waa shan nidaamka ugu dambeeyay ee shanaad ayaa ugu qaab darnaa wuxuu isku haystay ama shacabkii maskaxdiisina wuu haystay xooggiisina wuu haystay wuu maalay marka xooggii haddii lagu hayo oo maskaxdaada ay free tahay oo xor ay tahay qofka nafis ayuu dareemi karaa laakiin maskaxdii uu wax ku fikirayo haddii laga haysto xornimada taasaa ugu qaab daran sidaa darteeda markii xukunkii ay iska dhiibeen wixii ay cadaadin kareen ay cadaadiyeen
markii ugu dambeysay xukunkii miiska ay soo saareen ayaa la oran karaa shacabkii way xoroobeen shacabka isku wada duduuban yacnaha Kenyadii hoose iyo Kenyadii kore meesha anagu badanay NFD nafteeda inkastoo calaamatu su'aal fara badan halka ku jirto haddii aan rabno inaan sharaxno maxaa yeelay yaa xoroobe haddii la yidhaaho dadkii isaga ahaa NFD ka tirsanaa xornimadooda rabeen inay ku muujiyaan inay rabeen inay gooni u istaagaan haddii loo diido laga hor istaagay waxay u haysteen inayna weli xoroobin macnaa qofka meeshii uu muhanaya haddii uu gaari waayo wuxuu is oranayaa weli xornimadaydi ma aan gaarin waxaan u malaynayaa inay aad aragtay buug uu alifay Jaramogi Oginga Odinga oo lagu magacaabo Not Yet Uhuru macnaha markii hore xornimadii Kenya uu la jiray ambitions iyo diile fara badan ayuu lahaa inuu isaga hogaamiyo markay tii uu suuroobi waysay madaxweynenimo ku xigeen la siiyay oo haddana uu iskala weynaaday gooni u goostay mucaarad u noqday wuxuu alifay buug la yiraahdo Not Yet Uhuru macnaha weli xornimo maanan gaarin wuxuu ula jeedaa wixii aan muhanay maanan gaarin marka yaa xoroobe haddaad ku tiraaho laba macnay leedahay macnaha ugu hore yaa xoroobe shacabka Kenya oo dhan yaa xoroobe adoon kala qaadin yaase laga xoroobe su'aal kale waay oo weydiinayso waa ku arkaa waxaa laga xoroobay gumaysigii imperialiyadii Kenya Colony Protectorate la oranay wakiilka ugu ahaa Her Majesty the Queen Kenya u fadhiyay waxaa laga xoroobay sanadii 1963 ayadoo markii qaybta ugu hore bishii June daakhiliyad yar oo hoose ay jirtay taasna xornimo kaamil ma ahayn prime minister baa la haystay laakiin answerable waxaad u ahayd governorhii oo isagana answerable u ahaa xukuumaddii boqortooyada laakiin markii xornimadii buuxda Kenya ay heshay bishii December ayaa laga xoroobay yacnaha qaab kasta looga xoroobay ismaamul guud iyo ismaamul daakhili giddigoodba Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska Afrika ayaa dhankiisa waxa uu qabaa inay xoroobeen 42 qabiil ee ku midowda Kenya waxa xoroobay dadkii Afrikaanka ahaa ee gumaystihii Ingiriiska oo maartu gumaysanayay dhammaan qaaradda Afrika gaar ahaan Kenya waxa ku nool ilaa 42 qabiil baa ku noolaa marka 42 qabiil ee ku noolaa oo loo bixiyay wadanka Kenya loo baxshay ayaa waxay ka xoroobeen gumaystii Ingiriiska marka xornimada la sheeg waxa weeyaan xornimo laga xoroobay gumaystii Ingiriiska iyo gumaystii reer galbeedka ee qaaradda Afrika gumaysanayay gaar ahaan wadamada loo yaqaan wadamadan yani qaaradda Afrika dhinacaas sub-Saharan Afrika la yiraahdo yani qaaradda yani dhinaca dadka midow ay ku nool yihiin ayay madaruntii aad ugu xoroobeen gumaystii marka inay iska tuureen heeriyada gumaystaan iska tuureen ama Faransiis ha ahaado ama Ingiriis ha ahaado ama Talyaani ha ahaado ama Belgium ha ahaado يعني iska tuureen baa dadkaas ayaa xoroobay guud ahaan maartay dhanka kale waxa isna sharaxaad kooban ka bixinaya cidda xoroobay cidda laga xoroobay Xuseen Maxamed Aar oo kamid ah guddiga ganacsatada Soomaalida xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxa xoroobay wadaniintii asliga indinij ahaa dadka madow ee reer Kenya ee gumaysigu haystay waxay noqotay East Africa Tanzania waxay ahayd territory uu dagaalku qabsaday Ingiriisku Ugandana Protectorate bay ahayd Uganda Protectorate baa la oran jiray oo ayada wuxuu ugu yimid dad dhisan oo boqor leh oo constitution leh marka waxaad u malaynaysaa inay ka fududaayeen gumaysigii Kenya haystay laakiin Kenya waxaa la oran jiray Kenya Colony dhul ay ayagu qabsadeen
marka gumaysigu aad buu uga duwanaa runtii dadka xoroobeyna waxay ahaayeen dadkii afrikaanka ahaa ayaa xoroobay waxaa laga xoroobay gumaysigii dowladdii ingiriiska ahaa gofnar baa u joogay kenya xukumiyey oo madaxweyne oo kale ka ahaa wasiiro cad golo baarlamaan u lahaa oo wasiiro caddaanku u badnaa eeshiyaanku ku xigay carab nin baa loo oggolaa soomaali nin baa loo oggolaa adigu province walba nin baa looga oggolaa markaa ninkii NFD ugu ka soo galay wuxuu ahaa nin maxamed cali aadan lood la odhan jiray oo reer Wajeera markaa gumaysigaasaa haysan jiray oo dowladda ingiriiska ah guud ahaan qaybtii afaraad taxanaha barnaamijka iyaga sooyaalka Soomaalida Kenya oo aynu uga soo hadalnay cidda xorowday iyo cidda laga xoroobay waa naga inta barnaamijka waxa idiin soo saaray mar walba idin la socodsiiyay anigoo Axmed Laqaayi ah tan intaynu hawada dib ugu kulmi doono nabadiino